maanta oo bisha toddobaad ay tahay 30 sanadkuna uu yahay 2026 waxaan joognaa xarunta dhexe ee degmada Dhuusamareeb ee maamul goboleedka dawlad goboleedka Galmudug waxaa habsami u socda codayntii labadii maaragtay doorashada isku sidkanayd waxaanan insha Allah taala maanta noo furan wadooyinkii iyo dimuqraadiyaddii dalka uu u baahnaa dhammaan 11 degmo oo aan u cilaaminay inay ka dhacdo doorashada deegaanka dawlad goboleedka Galmudug State ayaa saaka 7 in the morning wada furmay boqolkiiba boqol waa ilaahay mahadiis waxaanan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay doorashadii bilaabato gaar ahaan reer Galmudug hawshan ay saa ku socon doonto bidmillaahil kariim Dhuusamareeb waxaa laga codayn doonaa 14 goobood 4 goobood oo bannaan ku taala ah iyo 10 goobood oo gudaha Dhuusamareeb ah Dhuusamareeb waa dhowr iyo 20 waxaan qiyaasaynaa in badankoodu maanta imaan doonaan insha Allah taala maanta oo bisha toddobaad ay tahay 30 sanadkuna uu yahay 2026 waxaan